waata saaxiibayaal soo dhawaada isku soo noqon wanaagsan mar kaleeto ciyaartii waa soo gabagabowday Chelsea waxay la kulantay guul darro Sunderland ayaa timaaday guriga Chelsea 3 dhibcood oo muhiimna way ka qaateen shalay ayaa hor u soo saadaaliyay ciyaartaas inay ahayd ciyaar adag Sunderland xil ciyaareedkan waxay ku bilowdeen qaab ciyaareed wanaagsan 8 kulan ee ciyaareen 14 dhibcood ayay lahaayeen kooxda Chelsea ayay ahaayeen isku dhibco sida daraadeed kulanku wuxuu ahaa kulan tafe Chelsea hadii ay badin lahayd maantay waxay aadi lahaayeen booska labaad balse Sunderland ayaa aaday kaalinta labaad waxyaraan ka dhaw marka kulanka waxa qalad iska lahaa kulanka ciyaartoyda Chelsea si fiican ay ku bilaadeen weerar badan gool ay ku hormareen waa laga bareejeeyay balse macalinka Chelsea Enzo Maresca waxaad moodaa inuu wili u baranayo Premier League iyo sida loo ciyaaro kulankan oo kale markuu yahay kulan saan u adag waxaad u baahan tahay inaad ka taxadirtid bedelkaadana aad ka fiirsatid sida daraadeed ciyaartoydii weerarka ayuu la wada baxay ciyaartoy dhowr oo weerarka ayuu soo geliyay hase ahaatee wuxuu bedelay ciyaaryahankii difaaca dhexe ee kooxda Chelsea maanta isku hayay si fiican u difaacay weeraryahanada kooxda Sunderland ciyaaryahankaas oo ahaa Josh Ajabowa balse Tosin ayuu keenay Tosinna wax ku dhex jira malahan hore ay kugu sheegay Chelsea waxay dhibaato doonaa xilli ciyaareedkan difaaca dhexe waliba center backa habali ayaa leeyahay mucaaradka maanta gambarka kooxda Chelsea u dhigtay Sunderland waxay qaateen 3 dhibcood oo muhiim ah kulamo kale oo xasaasi ayaa jiro gambarkeena waa diyaar 3 dhibcood maanta waa naga qaatay waa inoo kulan dambe kooxda Chelsea